السلام الله عليكم سو dhawaada saaxiibadeena wanaagsan markasta waxaan halkan iigu soo gudbiyaa maqaaladaan oo arko inay muhiim yihiin markastana waxaan jecelahay inaynu wada socono wax wanaagsan iska faa'iidno muddo ayaynu kala maqnayn balse hadda isku soo noqod wanaagsan ayaan leeyahay waxaynu buuxinay mid kamid ah shuruudii looga baahnaa qaybta YouTube-ka aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waayo idinka la'aantiin ma aanan gaarnayn halkaasi maanta waxaanu wadnaa ama muuqaalkeenu ku saabsan yahay 10 kan dabeecadood hadii aad leedahay gul ma gaari kartid aniga ayaa ku balan qaadaya hadii aad 10 ka dabeecadood wax kamid ah leedahayna waa ay daba socdaan inta kale ee waxaan ku leeyahay cudurkaasi waa in iska daaweysaa hadaynu barnaamijkeena hore ugu sii socno midda koobaad waxa ay tahay wadhami weyn tahay waxaad leedahay gool aan aqal galahayn oo waxaad doonaysaa in aad samayso waxyaabaan macquul ahayn aad iyo aad bayna u adag tahay taasi inaad gaadho runtii waayo waxa jira waxyaabaan suurtagal ahayn tusaale inaad ku fikirto 2023 waa inaan 1 bilyan haystaa macquul ma tahay maya waayo wadadeedii inaad qabato dhabaheedii aad haysay baa loo baahan yahay inaad ganacsi leedahay in dhaqaale kale meel ka soo galayo inaad wax xur rajaynayso qadarta eeba way dhici kartaa qodobka labaad waxa uu yahay qaladaadka waxaad u aragtaa fashil hadii uu qof kale sameeyo waxyaabo ka wanaagsan mid aad adigu haysato waxaad isku aragtaa in aad fashilantay sidoo kale waxaad qarisaa qaladaadka oo ka cabsanaya in aad ceebowdo ama dadku ku yiraahdaan wax guuleysta mar walba ma samaysid ama ay natiijadaada kugu caayaan qodobka saddexaad waxay tahay naftaada kuma qanacsanid qaasatan markaad qalad samayso kor iskuma qaadid badana waxaad isku daydaa qaladadkan sidoo kaaga dhacay naftaada ayaad canaanata dib badan ayaana naftaada u geysanaysaa hadii aad noocaas tahayna ma gaadhaysid wax horumar ah oo waxa ka hor istaagaya waxyaabahan aad samaynayso qodobka afraad waxaad ka cabsataa khataraha badana ma jeclid inaad wax khatar samayso ama riskiya nacam ganacsi ah shul ambashal oo kale way adag tahay qofkan sidoo ku galo oo ma dhici karto umana badna inuu gala ganacsi shul ambashala midda shanaad waxay tahay waxay kaaga dhagan tahay miraha kuma raaxaysatin inaad wax cusub barato ama aad gashato ama aad wax cusub oo tartan tijaabiso badana mar walba waxaad jeceshahay ganacsiga qadiimiga ah ee hore u taqaanay oo kaliya inaad sii wado ka un horumariso badana dadku sameeya ee ka cabsada khatarahana gul la wax la yiraahdo ma gaadhaan shantan qodobeen hadda hore u soo sheegnay shantaasi qodob ayaan muuqaalkeena ku ekeenaynaa muuqaalka dambana insha Allah waxaynu ka dhigaynaa shanta kale waayo muuqaalkeena inuu dheeraadaan ka cabsanina aawadeed ayaa waxaynu uga dhigayaa shantaasi dambe muuqaalka dambe inaynu ka dhigno insha Allah waxaynu rajaynayaa wax badan oo nadiga faa'iidaan aad iyo aad ba saaxiibayaal maasantiin qaabka sida wanaagsan ee dhiirigelisaan iguna taxantiin kanaalkayga aad iyo aad baan saaxiibiinga mahad celinaya waxa la yiri ma la yashkuru naasa la yashkuru Allah qofka bini'aadanka uma hadnaqin ilaahina uma mahadnaqo aad baad maasantiin saaxiibayaal intaanu ku kulmi doono muuqaal kala mid ah waxaan igaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo